waxaan marka hore salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa ka dhacay shir ay ka soo qayb galeen xubno kala duwan ee golaha wasiirada xildhibaano iyo culumad diinta Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada shirkaas waxaa lagu gorfeynayay xaaladda cusub ee ka taagan dalka gaar ahaan fatahaadda wabiyada Jubba iyo Shabeelle iyo dhibaatooyinka ku qabsaday dad badan oo Soomaaliyeed magaalooyin badan oo hadda ay dhibka ugu culus ka muuqato gaar ahaan magaalada Beledweyne madaxda iyo culimada diinta iyo haweenka isugu yimid shirkaasi waxa aan isku raacnay in aan u gurmano dadka Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan dawladda Soomaaliyana awood walba ay hayso inay ku jihayso sidii dadkaas loogu gurmo lahaa sida ugu dhaqsaha badan waxa kale oo isku raacnay in la aasaaso guddi u gurmada dadkaas ay waxyeeladu gaareen oo ka kooban 22 qofood oo uu madax u yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliyeed waxa qayb ka ah wasaaradda kala duwan ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda amniga wasaaradda gargaarka masiibooyinka wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha waxa kale oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo halkan taagan oo aad u jeedaan waxa kale oo ka mid ah xildhibaano Soomaaliyeed oo qayb ka ah waxa ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo iyaguna shirkan joogay maantay guddigaasi waxa uu ka shaqeyn doonaa sidii dadkaas loogu gurman lahaa sida ugu dhaqsaha badan shirkaasi markii uu dhamaaday kadib xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan haddana isugu yeernay shir kale oo aan ugu yeernay dhammaan safiirada iyo hay'adaha caalamka ee nagala jooga halkan ama ha ahaadaano UN-ka ama ha ahaadaano hay'adaha international iyo local NGOs-ka iyagana waxaan u sheegnay xaaladda dalku uu marayo waxaan ku dhiirigelinay inay sida dhaqsaha badan caawinaad u gaarsiiyaan dadkaas ku dhibaatoobay dhibaatadii aan soo sheegay waxayna ballan qaadeen inay sida ugu dhaqsaha badan ay caawinaad arrimahaas la xiriira geysan doonaan waxaa inoo haray shir aan isugu yeeri doono arrimahaas la xiriira oo ah shirka amniga si hay'adaha amnigu ay iyaguna qayb uga qaataan xal u helidda dhibaatooyinka dhacay laakiin waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego sida aan mar walba u sheegi jirnay mar walba oo dalkan dhibi ka dhacdo meesha ugu horeysa oo aniga igu soo dhacdo waxay tahay dadka Soomaaliyeed iyagu inay isku tashtaan inay iyagu isku gurmadaan annagu inaan isku tashanno dib walba nagu dhacana annagu aan xallisano waxaan aaminsanahay maadaama aan leenahay guddi ay culimadeena hormuud ka yihiin in annagu aan isku gurmano dadka Soomaaliyeed marka meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan walaalahooda ugu soo gurmadaan gobolada dariska la ah meelaha dhibaatadu ka dhaceen oo aanay biyuhu iyo dhib ku saameyn waxaan leenahay u gurmada walaalihiin 22 qofood oo xubnaha ka ah guddiga aan maanta halkan ku dhisnay oo aniga iyo madaxweynuhu aan ka ballanay inaan dhisno iyagana waxaan ka codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay shaqadooda u gutaan shirka ugu horeeyana ay galaan soo saaraan baahida loo qabo caawinaadda ummadda Soomaaliyeed ayna iyagoo kaashanaya hormuudka culimada Soomaaliyeed ay iyagu bilaabaan sidii ay ula hadli lahaayeen dadka Soomaaliyeed sidii loo caawin lahaa intaas ka sokow wixii yaala gargaar ama bac ama teendo ama daawo oo ay dawladdu hadda hayso waxaan ku bixinaynaa amar in la gaarsiiyo dadkaas dhibaataysan qof walba oo ku waxyeeloobay waxaan leenahay waa lagu soo gurmanayaa intii dhibaato ku gaartay waan u duceynaynaa waxaan u ballan qaadaynaa laakiin anigoo ku hadlaaya magaca dawladda federaalka Soomaaliya in wax walba oo dawladda Soomaaliyeed ay awoodo inaan laga hagranayn dadkaas meel walba oo ay ka joogaan gobolada Soomaaliyeed ee dalka ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed mar labaad waxaan idin leeyahay wanaaga ugu badan dalka wuxuu ka dhacaa markaad idinku soo gurmataan soo istaaga mar labaad caawiya dadkiina iyo dalkiina waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh